halkan isku keenay ciidamada ka qayb gala ka howlgala dhammaan gobolka Banaadir oo ay weeliyaan ciidamada garabka oo gaashaanka oo ah ay ummadda Soomaaliyeed ku hurdo runtii naftooda u hura hariya hameen kuwaas oo lagu magacaabo haramcad ummadda Soomaaliyeed ay yaqaaniin ay tugudiya haramcad ay halkan fadhiya oo ah ciidamo badan oo guud Soomaaliyeed ay ka howlgala laakiin inta shaqada la falgasho rasmiga oo ay ku dhacdo cabashada bulshada oo bulshada la shaqeeya oo haday wax yimaadaan amarkiisa ka jawaabaan maadaama yihiin oo waxay dhammaanna waxaan rabnaa in la gaarsiiyo wacyigelinta dhammaantood in la gaarsiiyo meel kasta joogaan intaas marka ku gudbo ujeedada kulanka waxaan rabaa fariir oo gaaban oo aan rabo inaan gaarsiiyo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha ammaanka oo dhan gobolka Banaadir inaan halkan ka jeediyo fariintaas waxay tahay waxa aad u soo batay bilay la soo dhaafay waxa la dilay qof muwaadin Soomaaliyeed بدون سبب مر معهن لبا معهن سدح معهن أفر معهن شن معهن وحين هو السعودان مالك استنا وحالة توقتا ضد يو أسكر على كدعي أو سياسة الدوارعي ولا والله حكومة ولا توقن دون حكومة ولا توقن سيدا درادين مركئين أسكر تلوعي قل شلا إذين الشيء الله ينفر هل كان يسكوه كان دوني وعي قلين تلقسيدون bulshada waxaa la idin diray ilaalintooda amnigooda naftooda maalkooda iyo sharaftooda askari kasta oo idin ka mid ah waxaa la rabaa inuu badqabka askarta basqabta shacabka inuu ka shaqeeyo la idinma dirin inaad askari qof xabad ku ridaan shacab la idinma dirin inaad handadaan la idinma dirin inaad lacag ka qaadataan waxaa la idin sugo inaad baa amnigiisa inaad sugtaan marka koowaad qofka shacabka qoroga u wataan oo aan dadka uga duwanaa waxay tahay qofka inaan ammaankiisa sugno in la baaro qofka waajibaadka lagu leeyahay laga guto laakiin qofna qoran lagu caalim laga shaqeeynin runtii laga shaqeeynin wixii dhici jiro kale ay sadceen inta waxa dheer hadii ifan qalad oo dhaco askari waa baxsay inay sadceen askari xabad ridi waa baxsay qof shacab u diri waa dhintay bajaajir xabad ku dhusto waa dhintay askari goob xab ciidan joogo inta qof ku dila fakada askari la jooga loo xiraa waa la xiraa waa la dambi macna haduu fakado waxa la rabaa inuu qabto asag qof ugu horeeyo inuu qabto askari la joogo mas'uul kale waxa ka asargaalka meesha joogo waxa ugu dambeysay oo ka dhacday isgoyska korontada ciidan kastan hay'adaha amniga oo shaqadooda qaran gudanaya askari xabad ku dhuftay booliska markaas ka tagay qof shacaba ayaa hormadaad xabad uga dhuftay markaas ay askari waa baxsaday ma naqaan iyo musuq ila qarsho waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha maxkamadda iyo taliyahaba in haddii dhacdo in qof muwaadin in la dilo oo la yiraahdo waa u baxsaday iyo waa tagay iyo intay ahaayeenba in maxkamadda la geeyo oo sharcigaas mas'uuliyad wadareed lagu xukumo ay sadcin dambiila baxsaday in kama saarayso dambiila baxsay dambe taliya waa baxsay lagu soo report garay waan baadi gooyna ma la yeelay qofkii qof dila oo askariga la jooga laga rabaa inuu soo qabto waxa intaas dheer oo fariintiga labaada waxa badatay ciidan labisan dariiska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo sameynaya baranka ku sameynaya shacab qorid ku qabta TikTok bulshadii dadka isticmaala laakiin ciidanka booliska Soomaaliyeed asoo wada dariiska booliska inuu baranka ku sameeyo qof qoran ku qabta oo maanta laga bilaabo amarka taliyaha uu fari doona maxkamada loo joogo doona waa dambi askari lagu arkaan maxkamada loo geeyo doona intaas kadib taliya iyo gudoomiyaal inta hadda aan shaqeynay askar badan iyo saraakiil qaladaad gashaan maxkamada la wadaagna galalkooda maanta ugu horeeyo waxaan ku wareejinaa askari kamid ah ciidanka booliska oo la soo dhigay baraha bulshada asoo qoray ku caalinaya qof muwaadin oo moto bajaaj ku caalinaya bisha la soo dhaafay askarigii uu ku jiraa filayaa inuu soo istaago markaa soo istaago waqtidaw askarigaas waxaan u soo saaraynaa waxay tahay inuu qaladka bulshada uu ka galay inaan adinka idiin sheegno bulshada u sheegno sharcigana la horgeeyo
سيسمو صلاة من قف موادنا لو عالي غرضا به انت سحاقات وعرب إلا تحقليو ضدك موادنين تا سبيشالي ويلش موتوريك وات aad waxa u dhibteen askarta dadka mootooyinka wata oo mootada ku shaqeysta mootora la dilay dadka mootada ku shaqeysta waa ka badan yihiin 70 kun oo qof oo Soomaaliya oo muwaadiniina inta ku xeeran ee dhaqaale ka hesha ee ku nool ee wax ka hesha waa ka badan tahay 1 milyan oo qof ka badan tahay bulshada la sabab u yihiin baahidooda cid bari kartaa oo ma jirto dadka mootooyinka wata waxay badqab u noqdeen dadkii safrahay ee aadahay tahriibka aadahay badqab u noqdeen ay xal u noqdeen kuwii tuugadahay ay xal u noqdeen waxaa la idinka rabaa oo la ka codsanaa inaad tixgelisaan oo aad ilaalisaan si gooniya bajaajlayaasha dadka bajaajla damba aqoon lagu qabtay iyo waalidin aan la maqlin qofkii qalad gala waa la qabanaa dadku qalad gala calaqay wadaan shabaabkay qawaariidtay wadaan qofkii qaladooda waa la qabanaa لكن بدون سوى حبض مرور سنة لا مغلب حبض رفض غرف حتى قالوا رفض غرف وقعد غرف ومعترك بنزل حتى لكن ما راح كليه حتى لو ما قعد ما نقف ما راح كليه وطالع شوف انتوا راح تعوموا طالع ما راح كليه وطالع على وجه ومطالع لو ومطالع ما راح وطالع لما يلاقي خوف دلو ذنبه سي او دبي او يراادو محكمه حتى waxaan ku codsanayaa dadka aqrabada oo heshiinaya oo heshiisan kala dhahay in la yareeyo oo si loo xakameeyo si loo helo sharciga loo geeyo intaas kadib waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha maxkamadda si uu doorkiisa uga hadlo iyo waajibaadkiisa u faro askarta u gudbino kuwana galalkooda u hayo oo qalaadka bulshada ka galay midna hadda halkan uu tagayahana